nin tima jare ah meherad ganacsi oo dadka timaha loogu jarana ku leh waddanka China ayaa la yimid qaab cusub oo ka gedisan habka timaha loo jaro, kaasi oo ka yaabiyey guud ahaanba dunida inteeda kale. ninkan oo lagu magacaabo Wang Weibo ayaa lagu tilmaamay inuu wali haysto qaabkii ay dadkii hore ee dunida timaha u jaran jireen xilli qarniyo fara badan ka hor. qof kasta oo maqlaa ama arka nidaamka ninkan uu wax u jarayo wuxuu darbaba bilaabaa in uu aad ula fajaco ama uu su'aalo badan isweydiiyo, halka dadka qaarkoodna ayba door bideen in uu timaha ugu jaro isagoo isticmaalaya nidaamka isaga u degsan. waxaad moodaa dhegaystayaal in aad isleedahay waa maxay qaabka la yaabka leh ee uu ninkan timaha u jarayo amaba uu isticmaalayo. wuxuu dabka geliyaa maqasyo aad u waaweyn oo u samaysan sida midka loo isticmaalo harqaanka oo kale. marka uu maqaskaasi kuleyl dartii la casaado ayuu dabka ka soo bixiyaa, wuxuuna bilaabaa in qofka kursiga ugu fadhiyo uu timihiisa ku jaro. maqaskaasi oo aad u kulul, isla markaana casaankiisa uu kaaga hor imaanayo bannaanka kore. isla markiiba waxaad arkaysaa timihii qofka oo isbeddelay midabkooda ayna u muuqato inay gubteen. laakiin ujeeddada timajaraha ayaa ah in uu u jaro style amaba hab cusub oo uu timaha isagu u jaro khaasna u ah, taasoo u sahlaysa in timaha sida uu rabo uu u jaro ilaa ay ka jilcaan. hase ahaatee waa arrin khatarteeda leh oo waxyeello fara badan gaarsiin karta qofka timaha loo jarayo. arrinta yaabka leh ee dad fara badan afka iyo gacanta ay iska saareen ayaa ah sida timajara Mr. Wang Weibo ay ugu suuro gashay inuu maqaskaasi kulul ka ilaaliyo qofka jirkiisa, gaar ahaanna madaxa, isla markaana uu timaha keliya u kululeeyo amaba ugu jaro. sidaasi oo ay tahay, dadka hawsha timajaraha uu u qabto ayaa haddana ammaan aad u ballaaran u soo jeediya, waxaana mar walba ay jecel yihiin in ninkaasi timaha uu u jaro oo aanay aadin meel kale.